taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka General Ali Maxamed Maxamuud Bagmadow ayaa maanta soo gaaray degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Doobley soo dhaweynta taliyaha qaybta 43aad General Ali Maxamed Maxamuud Bagmadow iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa si qurux badan loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha soo dhaweynta taliyaha qaybta 43aad ayaa waxa qayb ka ahaa maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo ciidamada qaybahooda kala duwan sidoo kale waxa qayb ka ahaa waxgaradka deegaanka Doobley iyadoo soo dhaweynta kadib taliyaha loo sii qaaday guriga martida halkaas uu warbaahinta ugu warbixiyay safarkiisa iyo ujeedka socdaalkiisa waxyaabaha uu ku saabsanaa hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan sidii aan uga safeyn lahayn deegaanka qawaariista taas aan u nimid ciidanka la hadli doonaa ciidankani waa ciidan tababaran oo u diyaarsan oo raba inuu khawaarijta la dagaalamo aniguna waa ku boorinaynaa intaa waxaa noo dheer maadaama gobollada kale ay ka socdaan howlgallo khawaarijta laga adkaaday lagu cidhibtirayo annagana waxaa naga go-an annagoo isu diyaarinayna howlgalladaas oo kale sidii aan u xoreyn lahayn Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe bay naga go'an tahay aan isu diyaarinaynaa diyaar baan u nahay waxaan ku rajaynahay dhawaan inaan waxna howlgallo khawaarijta dhiigii ummadda masaakiinta ah iyo maalkoodii xalaashatay inaanu ka qabanno dadka u aftoona inaanu ka xoreyno yaanu diyaar u nahay qaybta 43aad meel kasta ay joogto ama Gedo ama Jubbada Hoose oo Kismaayo iyo Doobley oo hadda aanu joogno diyaar waxaan u nahay inaanu khawaarijta ka saarno deegaanada ay aftuubka ku haystaan intaas aanu imid insha Allah ta'ala aan hawlgalaynaa wabillahi tawfiiq. Cabdinuur Xaye Xaashi idaacadda codka ciidamada qalabka sida degmada Doobley.